والسلام يا دمان شعبك الصومالي لان waxaa ka warqabteen in xisbiga wadani uu sheegay shacabka in wada shaqayntii iyo muraaqabiintii ka joogtay ama howlwadeennadii ka joogay xisbiga komishanka qaranka ay joojiyeen isagoo markaa tabanaya cabashooyin iyo codsiyo u soo gudbiyey komishanka qaranka inaan jawaab shaafiya laga siinin saa daraaddeed komishanka waa wada hadlaynay labadii cisho u soo socday waxaan u mahadnaqaynaa runtii dulqaadka ay muujiyeen waxaan isla garannay oo ku soo gunaanadnay in la dhegaysto dalabyadii iyo codsiyadii xisbiga ee ku saabsanaa doorashada guud ahaan gobolka Maroodijeex degmooyinka Gabiley iyo degmada Hargeysaba dalab kaya ku saabsan gobolada kalena in qoraal ahaan aanu ku gudbinay insha allahu jawaabna aanu ka sugi doono komishanka haddii ilaahay ka dhigo waxaanu isla garannay inaanu soo celinno si loo sii wado tirada guud ee gobolka Maroodijeex labada degmaba degmada Gabiley iyo degmada Hargeysaba waxaa kaloo darsaa ka warqabtaan arrinta ku saabsan buugga waxaa buug soo galay gacanta xisbiga shacbigana aan u soo bandhignay komishanku maalintii hore jawaabta bixiyeenna waa ogeydeen laakiin waxay caddeeyeen in buuggaasi uu ka mid ahaa buugaagtii iyagu ay lahaayeen ee ay ugu tala galeen doorashada waxaan u mahadnaqayaa waxaan u sheegayaa uun dhammaan taageerayaasha xisbiga in codsiyadii komishanku ay aqireen inay tixgelinayaan hadday tahay Maroodijeex iyo hadday tahay guud ahaanba dalka waanu u mahadnaqaynaa taageerasheeda waxaanu sidaasaanu ku wargelinaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga haddii ilaahay ka dhigo taa Hargeysana waa la bilaabayaa kuwa kalena jawaabtii iyo tixgelintii waanu ka sugaynaa sida ugu dhaqsaha badan komishanka haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu